haddii aad libaax disho ayuunbaa tahay nin dhammaystiran. waa dhaqanka laga aaminsan yahay gudaha qabiilka Masaayda. qabiilka Masaayda oo tiradooda lagu qiyaaso 2 milyan oo qof ayaa 1 milyan oo kamid ah ku nool yahay dalka Kenya, halka milyanka kalena ay ku nool yihiin dalka Tanzania ee galbeedka xuduudka kale dalkaasi Kenya. balse waa qabiil ku adag dhaqanadooda iyo caadooyinka ay aaminsan yihiin. waa qabiil aaminsan in loodu ay tahay hibo uu Ilaahay siiyay isla mar ahaantaasina aanu aadamaha intiisa kala siinin. waa qabiil aaminsan in ugaadhu mamnuuc ka tahay nooc kasta oo ay tahay marka laga yimaado in uu libaaxu bannaan yahay isla mar ahaantaasina wiil kasta oo qaangaadhay ay waajib ku tahay inuu libaax dilo si uu u muujiyo raganimadiisa. dhanka kale haweenka qabiilku waa kuwa ku shaqo leh hagaajinta guryaha iyo sidoo kale dhismihiisa, halka ay raggu waajibkoodu yahay raacidda xoolaha kala duwan ee ay leeyihiin qabiilka Masaayda, gaar ahaan lo'da. hadda gabadhani waxa ay u diyaargaroobaysaa in ay guriga dib u hagaajiso maadaama uu soo dhawaaday xilli roobaadkii, waxaana ay dib u cusboonaysiinaysaa dhoobada ay ka dhisan yihiin guryaha Masaaydu. balse cabashada ay qabaan ayaa ah inay dawladdu ku soo rogtay go'aano kala duwan oo ay ka mid yihiin in dhulka ay isticmaalaan uu kooban yahay, maadaama ay dawladdu dhulka qaar u qorshaysay in la isticmaalo barhka kalena la manaafacadsado ama laga dhigo seerayaal ay dadku ku baxsadaan xilliyada abaaraha. balse dadka Masaayda ayaa sheegaya inay tani khatar ku tahay caadadooda gurguritaanka ee ay dalalka iskaga kala gudbaan. agabka ay guryaha ka dhistaan ayaa ah agab aan ka fogeyn oo laga helo deegaanka ay degan yihiin, kuwaasi oo ah dhoobada iyo sidoo kale caleenta geedaha ay qalashay iyo qoryaha geedaha laga soo jaro. shacabka Masaayda ayaa ku nool dalka Kenya, waana mid ka mid ah qabiilada lagu tilmaamay inay yihiin qabiilada ugu geesisan ee ku nool qaaradda Afrika. Yohan Sadrexmaan, Ariel TV.